السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحاكو برنينا pH balance أما sida jirka uu regulation ugu sameeyo acidity. So marka jirka wuxuu soo saaraa acid badan maalin walbo. Acidkaas marka wuxuu halis ku yahay haddii uu bato oo regulation aan lagu sameynin inta acid oo jirka uu soo saaro iyo inta uu ka saaro in qofkii noloshiisa ay socon weyso. Macnaha waxaa jiro limit oo yar aad iyo aad u yar oo loogu talagalay habka ugu fiican oo jirka uu ku shaqeyn karo. Example yar waxaa kugu filan dadka qaba cudurka diabetes-ka ayaa sometimes waxaa ku dhaca waxa loo yaqaano diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis waxa keena waxay tahay in insulintii ay sokortii gudaha gelin weyso, macnaha unugyada gudahood inay geli waayaan. Taas waxay keenaysaa unugyada in ay joojiyaan oxidative phosphorylation oo ay soo saaraan waxa loo yaqaano ketone bodies. Ketone bodies-ka waxay badiyaan acidity-ga jirka. Acidity markuu bato maxaa dhacaya in qofkii uu dareemo laba marka hore ama matag hadii qofkii laga gaarin oo astal aan la geerin oo isla markii oo infusion oo glucose waxaas aan la siinin, macnaha waxaa dhacaya in ay istaagaan metabolism shaqadiisa, macnaha proteinadii shaqada qaban jiray inay istaagaan. Sababta ay u istaagayaan waxay tahay pH-ka oo optimum-ka ah oo loogu talagalay jirka inuu ku shaqeeyo ayaa isbedelay. Acidity-ga ayaa badatay, pH-ka ayaa hoos u dhacay. Macnaha pH markuu hoos u dhaco waxaa loo yaqaanaa acidity. Acidity-gaas badatan marka waxaa arkaysa in nolosha muhiim ay u tahay in jirka uu si oo tight ah u controlo. Marka cashirka marka waxaan ku baranaynaa laba qayb ayaa loo controla. Qaar waxaa controla pH-ka kaliyaha, kuwa qaarna waxaa controla samabada. So marka maanta cashirkan waxaan ku baranaynaa respiratory system maadaama aan baranaynay maalmahan qaabka samabada ay u controlaan respiratory-ga iyo qaar yar oo kaliyaha ah. Kaliyaha hadda waxaan iskaga dhaafnay markii oo renal system aan baranayno ayaan si fiican ugu hadli doonaa qaabka oo bicarbonate-ka iyo hydrogen-ka oo absorption and reabsorption loogu sameynayo cashir kale. So kan marka waxaa waaye qaabka respiratory-ga ayaan xooga ku saaraynaa sida uu controlo pH-ka. So marka haddii chemistry qof hore u soo bartay acid wuxuu leeyahay definition badan. Waxaa jira waxa loo yaqaano Bronsted-Lowry definition, Lewis acid, macnaha definition badan ayuu leeyahay. Laakiin maadaama cashirkan physiology uu yahay oo aan ku barnayn chemistry si oo fudud oo degdeg ayaan u dul maraynaa. So marka Bronsted-Lowry definition ayaa waxay leedahay acid waa proton donor. Wuxuu zaa'idiyaa protonka concentration-kiisa oo dareere ku dhex jira. Base-na waxaa loo yaqaanaa wax accept ama binding ku sameyn kara protonka. Example ahaan haddii hydrochloric acid oo kale oo biyo ku dartid wuxuu u kala baxayaa hydrogen proton iyo chloride ion. Iyo wuxuu u kala baxayaa proton. Taas marka wuxuu keenayaa waxaa batay protonka oo biyaha ku jira, maxaa ku dartay oxygen oo extra ah. Marka an acid is a proton donor. Concentration-ka oo hydrogen protonka ayuu zaa'idiyaa. So marka la fiirinayo marka acidity-ga oo wax dareere ku dhex jira waxaa la isticmaalaa waxa loo yaqaano pH scale. Sababta loo isticmaalayna waxay tahay concentration ayaa aad u yar. Macnaha haddaa fiirisid inta concentration oo hydrogen ah negative 10 to the power of -7, macnaha 0.0002 ayuu noqon lahaa. So marka numberkaas aad u yar oo zeroyaasha badan ay ku jiraan loo bedelo ayaa waxaa loo bedelay logarithmic. Macnaha logarithm wuxuu ka dhigayaa number oo qurux badan oo negative aan ku jirin. Marka negative log hadaa u bedeshid negative-kii iyo number-yaashii yariiskana meesha ka baxayaan, number fiican oo dadka ay fahmi karaan ay isku bedelayaan. So markii biyaha laga hadlayo pH-ka neutral-ka ah, macnaha biyaha aan cabno waa 7 waa macnaha concentration-ka oo hydrogen proton oo ku dhex jira pH-kiisa waxaa loo yaqaanaa 7. Marka dhiigga markaan u imaano concentration-ka optimum-ka ah oo enzymyaalkaada iyo proteinyaalkaada oo optimum metabolism ay ku sameyn karaan waxaa waaye 7.35 ilaa 7.45. haddii 7.45 uu ka bato pH oo dhiigga waxaa loo yaqaanaa alkalemia ama alkalosis, waane xaalad oo halis ah. Haddii dhiigga pH-kiisa hoos ugu dhaco 7.35 waxaa loo yaqaanaa acidosis ama acidemia. Taasina waa halis kale. So marka waxaa loo baahan yahay in oo tight control ka 7.35 ilaa 7.45 in oo lagu hayo.
so marka qaacida waxaa jirto xiriirka ka dhexeeya marka pH-ka iyo waxa loo yaqaano conjugate acid ama conjugate base ama pKa oo ah dissociation oo acidka ay sameynayso isku xiraysa qaacidan Henderson-Hasselbalch equation marka haddii labo ka mid ah variable kan ay haysatid kan saddexaad ayaa heli kartaa laakiin cashirkan muhiimadiisa ma ahan in aan ku barano Henderson-Hasselbalch equation qofkii u baahan in uu barto chemistry ama waxa uu yahay Henderson-Hasselbalch equation any chemistry textbook ayuu ka heli karaa explanation sababtoo ah waqti badan ayuu nagu qaadanaysa oo u baahan oo time badan cashirkan uu noqonayaa soo marka cashirkan ma rabi in uu aad u dheeraado oo chemistry uu nala galo soo marka waxa kale oo na baraya ayaa waxay tahay Henderson-Hasselbalch equation waxa loo yaqaano conjugate base iyo acid macnaha haddii oo acid ama dhahay for example hydrochloric acid oo kale haddii uu kala baxo macnaha uu kala baxo chloride ion iyo hydrogen waxay isku noqonayaan conjugate base iyo acid conjugate base wuxuu noqonayaa chloride ion oo kale acidna wuxuu noqonayaa H+ ama hydronium-ka so marka wuxuu ku sheegayaa marka given any pH ama pKa sida concentration-ka oo labada ay isku noqon doonaan macnaha prediction waa macnaha waxa qiyaasi kartaa inta conjugate base iyo inta acid uu noqon doono haddii pH-ka aad bedeshid haddii mid uun aad bedeshid kan kale ayuu saameynayaa marka bufferka wuxuu u shaqeeyaa waxay tahay sida miisaan oo kale miisaan oo laba gees waxa ka saartay haddii kan aad badisid kan dhan kale uu aadaya haddii kan aad badisid kan dhan kale uu aadaya bufferka marka wuxuu sameynayaa in uu joojiyo in waxay uu dhaqdhaqaaqo oo dhaxda uu ku hayo haddii kan uu bato dhankan ayuu soo celinayaa haddii dhankan uu bato dhankan ayuu soo celinayaa I hope in oo confusion aanan kugu ridin so marka si aad ku fahamtid Henderson-Hasselbalch equation haddii hore aadan chemistry usoo baran waxaan kugula talinayaa in oo muxuu ahaa any chemistry textbook aad ka fiirisid so marka cashirkan marab inuu nala dheeraado oo chemistry aan u laabano so marka physiological pH-ka ama concentration-ka oo hydrogen proton-ka oo dhiiga waxaa lagu uu ku kooban yahay 7.35 ilaa 7.45 macna markii normal physiology aan ka hadlayno haddii macna uu ka bato ama ka yaraadana waxa dhacaya in proteinadii oo metabolism ka shaqeynayay ama receptoradii ama macna nooc walba oo protein jirka ku jira in uu joojiyo shaqadiisa ama denaturing uu ku dhaco ama irreversible inactivation uu ku dhaco waxa marka oo ka soo hara macna exception ayuu leeyahay rule walbo waxa kamid ah enzyme kan oo pepsin oo ku dhex jira caloosha kaas marka pH oo 2 ayuu ku shaqeeyaa waxaana keenayso macna amino acid sequence-giisa ayaa u suurtagelinaysa in pH oo low ah oo acidic ah uu ku shaqeyn karo laakiin waa exception majority of proteinyaasha optimum pH kan ay u baahan yihiin si oo normal inay u shaqeeyaan so marka pH hadii aan la sixin oo kor u bad ama hoos u dhaco waxa kugu dhici karo arrhythmias habka korontada garaaca wadnahaaga inay isbedesho oo muruqyadaada habka u shaqeynayaan ay istaagaan in ay joogsadaan shaqadii metabolism-ka oo enzyme-yada ay sameynayaan oo kaliya qofkii coma inuu galo oo uu geeriyoodo isbedelkan oo uu keenay pH-ka macnaha uu isbedelay so marka saan hor usoo sheegnayna acidka waa jirkaaga ayaa soo saara waana qashinka ka soo hara carbohydrate metabolism kaasoo soo saara carbon dioxide oo loo yaqaano volatile marka kelmadda volatile waxay u taagan tahay wax jirka uu saari karo asagoo gaas ah carbon dioxide mar walba oo neeftaada banaanka u baxda aan neefsatid carbon dioxide badan ayaa saaraysaa waxaa jira marka acid kale oo non volatile ah oo macnaha si acid ah jirka aan loogu saareynin oo kaliyaha ay saarayaan oo kaadida lagu daraayo kuwaas waxaa kamid ah marka metabolism-ka oo proteinka waxyaalaha kasoo hara iyo organic acid sida fatty acids oo kale so marka Henderson-Hasselbalch equation saan hor usoo sheegnay wuxuu xiriiriyaa pH-ka concentration-ka oo conjugate base-ka conjugate aan dhahe concentration oo acid-ka ah saarkays mar walba oo carbon dioxide aan dhaho waxaan dhahayaa acid sababtoo ah acidity-ga oo jirka waxaa sabab u ah soo saaridda carbon dioxide marka la soo saaro enzyme oo carbonic anhydrase ayaa immediately waxay u bedeshaa carbonic acid kaas aadsan wuxuu dissociation isku sameeynaya bicarbonate iyo hydrogen proton so marka hadii mid kamid ah aad bedeshid hadii jirka pH-kiisa uu bato saameyn ayuu ku yeelanayaa concentration oo bicarbonate-ka iyo partial pressure oo carbon dioxide macnaha isbedelkaas oo noqon karo mid oo halis ah
so marka isbedel hadduu dhaco oo 7.35 uu ka yaraado ama uu ka bato jirkaaga wuxuu isku dayayaa in uu soo celiyo optimum pH kii oo 7.35 ama 7.45 kuwaasna waxaa sameynayo kaliyaha iyo sanbabada. kaliyaha iyo sanbabada shaqada ay qabanayaan waxay tahay haddii carbon dioxide oo kale uu bato in aad neefsatid oo jirkaaga maskaxda ay badiso neefsashada. respiratory center ayaa waxay badanaysaa depth inta macnaa uu balaaranaya xabadkaaga mar walba oo aad neefsatid iyo rate in uu bato macnaa neefsashadaada inta halkii second inta mar aad neefsanaysid. so marka haddii uu bato bicarbonate-ka kaliyaha ay waxay isku dayayaan in ay ka takhalusaan oo kaadida ay raaciyaan bicarbonate-ka. si la mid ah hadduu yaraado kaliyaha waxay isku dayayaan in ay reabsorption ku sameeyaan oo soo celiyaan si oo ay soo celiyaan macnaha optimum pH-ka. so marka kaliyaha iyo waxaan dhahnay iyo beerka ayaa ka takhalusa. qaabka marka oo regulation lagu sameynayo waxaa kamid ah waxaa loo yaqaan chemical buffers. chemical buffers waxa way bicarbonate-ka ayaa wuxuu binding ku sameyn karaa oxygen. so marka bicarbonate-ka saan hore soo sheegnay waa reaction oo laba dhinacba u socon kara. kan ma aha umaleynaa meel kale aan ku arki doonaa equation kaas oo bicarbonate-ka iyo carbonic acid u sameynayo reaction macnaha oo reversible waaye. bicarbonate-ka hydrogen binding ayuu ku sameyn kartaa oo macnaha ayadoo meesha ka tirtiraysa jirka inta oo hydrogen kusoo zaa'iday. haddii hydrogenka macnaha uu yaraadane waxay sameyn kartaa disassociation oo carbonic acid uu kala baxayo bicarbonate iyo proton. so marka waa fahamtay umaleynaa bufferka waxa waaye wax yareynayo concentrationka oo hydrogen ku jirta sababtoo ah binding ayuu ku sameyn karaa. so marka chemical buffers oo bicarbonate-ka ah si dhaqso ah ayuu isla markii iskugu dayayaa in oo mob uu sameeyo protonada oo hydrogen-ka ah. si la mid ah sanbabada within minutes ayay fariin waxay ugu helayaan maskaxda respiratory center-ka kuwaas oo zaa'idinaya inta carbon dioxide oo jirka laga saari karo. laakiin kaliyaha waa long term saacada badan ilaa maalmo ayay ku qaadanaysaa in ay soo celiyaan normal pH. so marka kuwa ugu degdegsan waa chemical-ka inkastoo laakiin uu yar yahay awoodda uu leeyahay inuu soo celiyo optimum pH-ka. kan ugu muhiimsan ayaa ah ventilation in dhaqso aad neefsatid si aad jirka ugu saartid carbon dioxide-ka kugu soo batay. haddii kasoo qaad marka wadna samabada oo kale laga hayo cudurka aad qabtid oo obstructive disease oo samabada ah sida asthma oo kale ama COPD dhib ayay kugu noqonaysaa in aad jirkaaga ka saartid acidka badan ee soo gala. that's why dadka oo cuduradaas qaba oo mar walba hypercapnia ugu dhacdo oo breathless ay u noqdaan sometimes. si la mid ah dadka oo dialysis lagu sameeyo oo kaliyaha ka xanuunsan ayagana waxaa ku dhaca acidemia ama alkalemia oo problem sababtoo ah regulation aysan ku sameyn karin pH-ka oo jirkooda. so marka bufferska jirka kama saaraan hydrogen meeshan oxygen ma aha waa hydrogen macnaha H+. so kama saaraan just binding ayay ku sameynayaan macnaha chemical oo reversible waaye binding ayay ku sameeyaan. haddii uu isbedelo xaaladda oo macnaha pH-ka horna waa u socon karaan gadaalna waa u socon karaan. haddii dhankaas uu bato dhankan ayuu aadayaa haddii dhankan u batan dhankan ayuu aadayaa. macnaha waxaan ka wadaa carbon dioxide plus water oo carbonic anhydrase isku sameynayso ayaa wuxuu isku bedelayaa carbonic acid. carbonic acid kaasna wuxuu isku bedelayaa bicarbonate iyo hydrogen. so marka dhankaas oo carbon dioxide-kan waa loo badin karaa. carbon dioxide kasana haddii u bato dhankaas oo protonka iyo bicarbonate-ka waa loo badin karaa. so marka proteinka iyo phosphate-ka iyo kuwaas oo dhan marka muhiim ay u yihiin macnaha acidkaas oo la soo saarayo. waxaa kaloo muhiim ah potassium. potassium waa intercellular macnaha iron wuxuu ku dhex jira unugyada gudahood. haddii jirka marka uu ku dhaco acidemia potassiumkii oo gudaha unugyada ku jiray banaanka ayuu soo aadaya extracellular kaasoo keenaya hyperkalemia ama concentrationka oo potassiumka oo dhiigga ku dhex jira in uu bato. that's why dadka oo diabetic ketoacidosis ay ku dhacdo markii emergency la geeyo oo infusion oo potassium loo siiyo. sababta waxay tahay jirka unugyada ayaa waxay isku dayayaan maadaama uu batay protonka oo dhiigga dhex jooga in oo gudaha selka uu soo galo macnaha concentration gradient-ga ama macnaha inta proton oo gudaha ku jirta iyo banaanka ay isbedelaya. potassium-tii ay banaanka soo aadayso hydrogen-tii ay gudaha galayso macnaha dhibaato aad u weyn waaye. so marka muhiim ay tahay in la saxo sababtoo ah potassium waa nolosha ayaa ku tiirsan laakiin haddii uu bato qofka wadnaha istaagaya wadnaha hadduu istaagan qofka waa u dhamaatay waa u geeriyoon karaa. so marka
physiological pH saa hor usoo sheegnay waxaa waaye 7.35 ilaa 7.45 concentrationka oo protonkana waxaa waaye 40 nanomole per liter. waxaa kaloo la isticmaala wax loo yaqaano millimeter mercury iyo kilopascals marka laga hadlayo partial pressure of carbon dioxide. haddaa rabtid in kPa u bedeshid millimeter mercury 7.55 ku dhufanaysaa macnaa kPa ga. concentrationka oo bicarbonate-kana waxaa waaye 22 ilaa 26 millimole halkii liter. so marka ereygan oo acidemia waxaa loo yaqaanaa haddii pH hoos uga dhaco 7.35 taasoo keenaysa inuu hoos u dhaco central nervous systemka shaqadiisa. alkalemian waxaa loo yaqaanaa haddii pH-ka uu ka dulmaro 7.45 taasoo keenaysa central nervous systemka iyo peripheral nervous systemka in shaqada aad ay u badato oo excite ay noqdaan oo macnaha oo qofkii uu galo coma iyo xataa qofkii uu geeriyoodo haddii oo muxuu ahaa aad u bata pH. tan kale muhiimka waxay tahay alkalemia rare waa macna badanaa ma dhacdo. alkalemia badanaa waxaa badan metabolic acidosis ama respiratory acidosis inay dhacaan. haddii alkalemia ay dhacdo badanaa dadku ay u dhintaan. alkalemia waa xaalad halis ah oo jirka uusan soo celin karin normal macna optimum pH badanaa ma soo celin karo. acidemia laakiin jirka wuxuu isku dayayaa in uu soo celiyo isla markii. equationka idin sheegayna waa kana marka dhankan oo carbon dioxide-ka ilaa dhankan waa u wadi karaa, dhankan waa isku bedeli karaa. marka waxaa arkaysaa bicarbonate ion-ka in binding uu ku sameyn karo hydrogen. for example macnaha haddii hydrogen concentrationkiisa uu bato oo bicarbonate badan ay haysatid oo kaliyaha ay reabsorption kusoo sameeyaan in uu yareyn karo concentrationkiisa. haddii binding uu ku sameeyo wuxuu noqonayaa carbonic acid si lamid ah. so marka waxaa arkaysa in uu yahay muxuu ahaa mop oo kale macnaha wax oo sponge oo dhuuqaya meesha ka saaraya oxygenta oo aan dhahay hydrogen tirada badan soo gashay. so waxaa kaloo arkaynaa marka haddii respiratory acidosis oo kale ay dhacdo aad ayay u adag tahay oo aad iyo aad u bato macnaha concentration of carbon dioxide. haddii cudur sanbada oo kale aad qabtid oo aadan ka saari karin jirkaaga oo aadan neefsan karin carbon dioxide-ka aad ayay u adag tahay jirkaaga in oo correction uu ku sameeyo. kaasoo marka maskaxda oo la soo xiriirto sanbabadaada oo isla markii oo ka saaro muxuu ahaa sanbabadaada. laakiin bicarbonate-ka waxaa regulation ku sameeya kaliyaha, kaasna muddo ayuu qaadanaya in oo regulationkii uu soo celiyo. so marka sanbabada qofkii laga haayo oo xanuunsan oo kale waxaa arkaysaa in oo dhibaato weyn uu ku jiro. marka waxaa jirta waxa loo yaqaano respiratory acidosis iyo respiratory alkalosis. respiratory acidosis waxaa waaye qofkii in uu neefsan waayo carbon dioxide-kii oo uu ku bato jirkiisa. macnaha respiratory acidosis carbon dioxide-ka ayaa isbedelaya, carbon dioxide ayaa aad u badanaya. taas waxay keenaya cuduro oo qofkii alveoluskiisa in ay dhintaan ama surface area uu yaraado. macnaha emphysema cudurkan la dhaho emphysema waxaa waaye surface area oo wuxuu yareeyaa alveoli oo sanbabada kugu jira hadduu yaraado maxaa dhacaya in aadan jirkaaga ka saari karin carbon dioxide. haddii taas kugu dhacda maxaa kugu dhacaya acidosis, waxaa loo yaqaan respiratory acidosis. dadka waxaa lagu daaweeyaa marka in la siiyo bicarbonate oo aan dhahe infusion lagu sameeyo faleebo oo bicarbonate ah. ventilationkoodana la isku dayo in oo la saxo si carbon dioxide-ka loogu saaro. waxaa kaloo mid ah pulmonary edema haddii dhiigga oo uu ku bato muxuu ahaa oo dhex jooga sanbabada, ama haddii dhaawac uu kaasoo gaaro medallaha ama pons oo qofkii accident oo baawur oo kale uu galo oo meesha dhaawac uu ka gaaro waa halis. si lamid ah respiratory alkalosis waxaa keena in partial pressure carbon dioxide-ka u yaraado. for example haddaa isku daysid in xoog u neefsid oo kale adoo waxba sameyneynin oon ordeynin, haddaa isku daysid in carbon dioxide jirka ku saartid, ama haddii qofka anxiety dadka qaar waxaa arkaysa haddii meel ay imaadaan oo cabsi ama macnaha walaac tira badan uu galo inuu ku dhaco respiratory alkalosis, taasoo ah in carbon dioxide oo jirkood ku jira ay hal mar xoog u saaraan. taas carbon dioxide jirka ku saartid maxaa dhacaya in oo concentrationkii oo hydrogen-ka oo u yaraado, sababtoo ah carbon dioxide ayaa sidiisba ka mas-uul ah acidka oo jirka ah, sababtoo ah saa hor usoo sheegnay carbonic anhydrase ayaa waxay u bedeshaa carbon dioxide iyo biyaha inay isku darto carbonic acid. haddii u dhaco marka waxaa ku imaanaya waxaa loo yaqaano respiratory
alkalosis sila mid marka waxaa keena haddii qofka overdose ama aspirin tira badan oo si qalad uu qaato haddii qofka stroke uu ku dhaco marka kalyaha waxay isku dayaan in ay saxaan oo bartoonkii oo kaadida ay sii raaciyaan ama qofkii oo waxa uu neefsado haddana macnaha haddii oo bac oo kale qofka uu ku neefsado haddana isla markii oo inspiration macnaha oo mar labaad uu ku neefsado sababtoo ah carbon dioxide-kii soo saartay ayaa dib u ceshanaysaa taas waxay ku keenaysaa marka in kor uu kaco partial pressure oo carbon dioxide waxaa kaloo jira marka waxaa loo yaqaano non respiratory ama metabolic acidosis ama metabolic alkalosis marka waxyaalaha keen waxaa waa jirooyin oo sida diabetes ku xirka hore aan kasoo hadalnay in uu bato waxyaalaha chemical jirka uu soo saaro oo acid keenaya sida oo ketone bodies oo kale taasoo keenaysa marka in jirkii acidkiis hoos u dhaco kuwaas marka badanaa waxaa saxda kaliyaha ama bicarbonate-ka haddii kaliyaha marka oo qofka laga hayana aad iyo aad ayay u adag tahay in oo kalihii ay saxaan oo qofkii dialysis oo kale waxaas lagu sameynayo so marka disturbance waxaa loo kala bedeli karaa waxaa loo yaqaano san hadda waxaa hor soo sheegnay respiratory cause carbon dioxide haddii uu zaaid ama haddii uu yaraado haddii metabolic uu yahay badanaa waxaa la arkaa change oo ku dhaca bicarbonate-ka compensationna waxaa laga wadaa isku dayida jirka isku dayayo in uu saxo jirka maxna wuxuu isku dayayaa respiratory acidosis ay dhacdo in uu isla markii meesha ka saaro haddii respiratory alkalosis ay dhacdo in oo ay respiratory centerka ay yareeyaan ventilationka oo jirka laga saaro carbon dioxide-ka so marka saa hor usoo sheegnayne kaliyaha waqti badan ayay qaadataa macnaa saxitaankooda waa saacada tira badan ilaa maalmo xataa in kalida ay ku qaadato inay saxaan bicarbonate-ka iyo hydrogen-ka oo kaalida ay ku darayaan halka oo sambabada iyo chemical bufferska ay within seconds ama minutes oo kusoo celiyaan pH-ka so marka haddii marka oo qof oo arteries oo kale oo syringe dhiig loogu qaado oo waxaa loo yaqaanaa arterial blood gases qofka hadii oo acidosis ku dhaco xusaan la seexiyo oo kale device ayaa lagu fiiriyaa kan waa very simplistic waxyaalo badan ayaa determine gareeya sida uu yahay laakiin example yar ayaan rabay inaan aragno marka haddii abg qofka dhiig laga qaado oo la fiiriyo waxaa la fiiriyaa pH-kiisa 7.45 ma ka sareeya ma ka hooseeya haddii uu ka sareeyo waa alkalosis haddii uu ka hooseeyo waa acidosis waxaa fiirsaa partial pressure oo carbon dioxide iyo concentration oo bicarbonate-ka normal range ma yihiin maya waxaa fiirsaa marka waxyaalaha keenaya respiratory alkalosis iyo respiratory acidosis haddii uu badan yahay carbon dioxide-ka oo pH-ka uu yar yahay waa respiratory acidosis haddii oo carbon dioxide-ka uu yar yahay oo muxuu ahaa pH-kana uu badan yahay waxay u badan tahay respiratory alkalosis iyo wixii la mid ah so marka waa joojin kartaa cashirka muxuu ahaa videohan si aad u fiirisid waxyaalaha oo determine gareeya in oo haysatid respiratory acidosis ama respiratory alkalosis ama metabolic acidosis ama metabolic alkalosis kana waa marka chart yar waaye oo aad fiirin kartid waxay dhacay respiratory acidosis pH-ka hoos ayuu dhacayaa partial pressure carbon dioxide-ka kor u aadayaa bicarbonate concentration-kiisa kor ayuu aadayaa ama normal ayuu noqonayaa macnaha c waxay u taagan tahay compensation haddii uu sameeyo iyo si lamid ah videohan jooji haddii aad rabtid in oo aad fiirisid qaababka ay ku imaadaan oo dhan so marka device-kan waaye qofka dhiig ayaa laga qaadaa kana lagu fiiriyaa isla markii wuxuu ku tusayaa pH-ka saturation oo oxygen-ka wuxuu ku tusayaa partial pressure-ka oo bicarbonate aan dhahay concentration-ka bicarbonate-ka iyo partial pressure-ka carbon dioxide-ka isla markiina marka waxaa arki kartaa waxaa kugu dhacay in uu yahay metabolic acidosis respiratory alkalosis metabolic alkalosis qaybta normalka marka qaybtan tight-ka ee marka jirka wuxuu rabaa noloshiisa intaan haddii inta aadidna waxaa ku imaanaya alkalosis haddii inta aadidna waxaa ku imaanaya acidosis si lamid ah marka muxuu ahaa waa joojin kartaa haddii aragtid in oo chartgan aad fiirisid waa chart oo wikipedia ku jira haddii oo aragtid inaad download ku samaysateed so marka example yar waaye kan waxaan dhahnay 7.35 waaye macnaa optimumka inuu yahay 7.35 ilaa 7.45 example-kan haddaan fiiriyo marka pH-ka waxaa waaye 7.8 so marka isla markii waxaa arkaysa in meeshan uu yahay alkalosis haddaan fiirino carbon dioxide-ka waxaa waaye 50 mmg kor ayuu u kacay bicarbonate-kana maxaa waaye normal oo kale so isla markii waxaa arkaynaa inay tahay metabolic alkalosis sababtoo ah pH-kana kor ayuu kacay carbon dioxide-kana kor u kacay haddii chartkii aan ku laabano metabolic waxaan dhahnay
pH-ka kor waaye carbon dioxide-kana kor. waxaan raadinaynaa marka meel oo pH kor u yahay carbon dioxide-kana kor u yahay metabolic alkalosis. so marka kan waxay ahayd kor inuu ahaado pH kor inuu ahaado partial pressure oo carbon dioxide kor u ahaado kaasoo ah metabolic alkalosis. normal ma ahan meeshan waa inuu ahaadaa arrow oo up metabolic alkalosis daan haysano. si la mid ah kan waxaan arkaynaa pH 7.25 isla markii waxaan garanaynaa inuu yahay kan acidosis. aan fiirino partial pressure-ka oo carbon dioxide kor ayuu u kacay isagana. carbon dioxide-ka aan dhahay pH hoos ayuu aaday carbon dioxide-kan kor u aaday. so marka swap waa respiratory acidosis waa kan sababtoo ah waxaan arkaynaa in uu zaa'iday carbon dioxide concentration-kiisa pH-kan hoos u dhacay. haddii aragtay marka mid kor aaday mid hoos aaday gaar ahaan partial pressure carbon dioxide iyo pH-ka respiratory ay u badan tahay. haddii aragtay bicarbonate-ka oo compensation sameeyey oo kor aadane waxay la mid tahay jirka oo isku dayaya in uu saxo. si la mid ah pH-kan 7.6 waa alkalosis. aan fiirino partial pressure-ka oo carbon dioxide-ka 3.5 waa ka hooseeya. so marka kan kor u aaday kan hoos u aaday marka waa respiratory alkalosis iyo waxay la mid ah. so markaas very simplistic waaye kan hadda aan fiirinaynay iyo kan iyo chart-gaan arkaynay waa very simplistic. xogaa waa ka adag tahay marka waa muhiim marka in kaliyaha history-ga waxa dhacay kulli la isku daro oo si oo guud ahaan. so kan waa iska rule of thumb oo aan ahayn waxyaalo oo maxnaa oo clinical decision lagu gaari karo oo numberadan bas fiirinaysid. qofka oo patientiga ah oo xanuunsan ayaa la fiirinayaa history-ga iyo waxa keenay xaaladda kaliyihiisa sida wax u dhaceen oo kadib ayaa go-aan laga gaaraya waxa dhacay inuu yahay metabolic alkalosis ama respiratory alkalosis. kan waa very simplistic marka waa wixii hadda aan soo sheegnay oo daaratid aad joojin kartid oo aad fiirin kartid macnaha waxa zaa'idaya partial pressure carbon dioxide-ka iyo bicarbonate concentration-ka iyo waxa uu yahay. laakiin warning digniin xasuusna waa very simplistic waa wax oo wax fudeed ka soo dhigaya. it's not very simple waa arrin oo complex ah. so marka waxyaalo badan ayaa keenaya isbedelada oo muxuu ahaa oo macna pH-ka ah.